faraxsanahay inaan mar kale haddana aan maaragtay aan Hargeysa la jooga anigu safartayda waxay ahayd mid maaragtay khaas ah wasiirkeena arrimaha dibadda diyaaradda maan isku aragnay iskama aanan warhayn marka hadda halka maan isku imaanay laakiin korka maan wada soconay diyaaradda maan isku aragnay anigu waxaan u socdaa in wixii guud oo Soomaali oo dhanba nabadeedii maaragtay horumarkeedii dhibaatooyinka haysato oo dhanba sidii maaragtay xal aanan ahayn gacan qaad looga gaari lahaa waxyaabahaasaan aaminsanahay anigu ma aaminsanin marnaba in maaragtay Soomaaliya isu gacan qaada meel joogtaba taasna waxa weeyaan mid aan dawladana u sheegayo shacabka Soomaaliyeedna u sheegayo wallahi wax dhibaato oo jiro oo dhanba waxa weeyaan wada hadal waqtiga lagu dhameyn lahaa la jooga mada waxaan oga baxayaa maaragtay waxyaabaha hadda dhibaatooyinka ka jira Soomaaliland gudaheeda iyo gobolada maaragtay ay ka dhacday gacan qaadka in maaragtay dawladana ay isticmaasho wax la yiraahdo aad maaragtay deganaasho xasilooni iyo tartiib iyo wada hadal ila dhaqan Soomaaliyeed weyn iska leenahay anaga Soomaaliya waa inay ka weynaato oo ay ka talaabsato gacan qaadka oo markasta walaalo wax kasta loo wada dhameeyo maantana Soomaali meel joogto oo dhanba waxa weeyaan dhulkay taala mar haddii dhulka taala dhanba ay ugu jirtaa anagoo dhanba inaan walaalnimo ku wada hadalno meel alle meelan joogno dhanba dhibaatooyinka waxa ka jirta Soomaali jamhuuriyadii waxa ka haysta aragtaan idinka weydan haysataa taa waa dardaaran guud oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo maaragtay madaxda Soomaaliland iyagana u gudbinayo xalka Soomaali guud ahaanna inaan anagoo dhanba guud ahaan aan u galno aad baan ugu faraxsanahay runtii maaragtay sida hadda marka loo eego dhanka kale oo Soomaalida ay Somaliland ay maaragtay u degantahay oo nabadgelyadeeda ay in badan ay u sugan tahay inta ka hadhayna maaragtay in la iyadana maaragtay si xalaal oo maaragtay wada hadal lagu maaragtay lagu joojiyo lagu xasiliyo wixii kale waxa weeyaan qiimeyn yar oo maaragtay inaan arko isbedelada iyo wixii wada hadal aan u yeelan lahayn wada hadal badan baynu yeelanaynaa Soomaaliya ku dibadda jiro diaspora-ga wala la hadlay Somaliland waan imaanayna waan la hadlaynaa Soomaaliya waan la hadlaynaa Soomaalida meel ay joogto oo dhanba waxa weeyaan adduunkii baan ugu wiirsanaya adduunkii baan u jabnay cadawga Soomaaliyeed oo dhan waa loo jabay waxaasna waxa weeyaan cid kale oo haysato dibadda naga haysta male oo anaga dhaxdayga anu qaran kalaan ka imaaday oo Kenya la yiraahdo oo jiraan Allah haatanna waxa weeyaan ciidamadiisa ay gudaha galeen ma doonayna runtii wax maaragtay uu ku farxi karo ninka Soomaaliga oo Kenyaanka inuu arkay ciidamo Kenyaan oo galayso gudaha laakiin de wax maaragtay daruuri noqotay oo dhibkii waa sii farabatay qaxootigii baa yaa boqolaalkun ku soo galay wadanka Kenya macluushii iyo rafaadkii iyo gaajadii iyo abaarihii iyo dhibkii ay ku hayeen nimankaas maaragtay xajirka oo runtii iyagana inay ummadda baabiyaan ku talagaleen waxa soo dhan baan ugu qasabtay in la galo laakiin lagu galo si tartiibsan oo xisaabsan oo maaragtay haddana laga soo baxay sida ugu degdegsiin badan intaasna oo la kiciyo Soomaaliya oo dhanba la isku imaado sida maaragtay loo sameyn lahaa si shacabkana wax u gaarin shacabka Soomaaliyeed waxba gaaray aad baan uga xunnahay laakiin laba goorreebo waa wax maaragtay aan doonayna inaan madaxdiina aad kala sheekaysto guud ahaan waayo marka hadaan ku jabno Somaliland oo ku jabena Kenya oo ku jabena Ethiopia oo ku jabena meel kasto oo dadka wada dhashay waa isku dhig marka waa inaan comprehensively aan u raadino nabadaanadii xasiloonada mustaqbalkaana aan wax uga qabsano Soomaaliland ay wada hadashado dhanba taa waxaan kaga baxayaa guud ahaan arinta Soomaaliyeed